بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد. أيانتان اسمنا أرق مالمها ولا كلام مغناء. أني سعدي واكو سلامي شرفي واكو سلامي لما أمد الصوماليات وإسلام كامل تشوغان بوا سلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كلو سيجار وسلامية inta ka shaqeysa oo u taagan samaha iyo midnimada Soomaaliyeed iyo kuwa habeen iyo maalin u taagan siday Soomaali u midayn lahaayeen iyo siday hantidooda u ilaalin lahaayeen iyo wanaagga inta ka shaqeyso dhammaan waa idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. eedawa Axmed waa ku jeedaa, Fardows waa ku jeedaa, Aasiya waa ku jeedaa, dhammaantiin waa idin salaamay. Inta wada kala maqnayn walaashin Hinda Cabdi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xogaa yar meeshan waxaan rabay inaan ka yiraahdo waxyaabo badan baa martay ugu jiro firaaqan waayay maalmahan, laakiin xagga waxa aad igu waxaan arkayay wasiirka maaliyadda oo runtii wajiga isku talaab laga saaray. isku talaab ni qof xad gudbay oo khaldamay oo waalan amal in macnaha oo maar oo kale macnaha wajiga inta isku talaab laga saaray baan ku arkay baraha bulshada. sababta looga saarahayaana ay tahay war canshuurta baxsada dalkiinana dhista wax kale ma aha. wasiir Beyle lacag intuu ka qaato jeebkiisa kuma shubanayo. waxa la weydiinaya dadkan muddada badan dawlad la'aanta ku raagay war canshuurtii maana fahamsanin hana la fahamsiyo waa daw, laakiin wax sabab lagu diidi kara canshuur oo macnaha dal waliba jajabay oo muddo badan aad macnaha dhulka u galay oo balaayo maaragtay 30 sano ku gaadeynaysay oo macnaha resources kooda ay ka maqan yahay oo dhismayaasha ka maqan yahay oo wadada ka maqan tahay iskoolka ka maqan yahay caafimaadka ka maqan yahay ciidankooda ka maqan yahay cid walba wax walba macnaha u baahan wax walba foundation asaas ah. qofka yiraahdo canshuur bixin maayo horta waa cadow ma aha Soomaali. sababta Soomaaliya dadku isku eg yahay af Soomaaligina waa lagu wada hadlayaa runtii, laakiin 30 sano waxaa nagu dhex abuurmay dad Soomaali aad moodayso aan Soomaali ahayn, dad fikir diiniya wata sida macnaha al-shabaab oo kale u shaqeeya mabaadi wata iyo asxaab oo aan ka nixin wax Soomaalinimo la yiraahdo aysan iyagu ku jirin. danta marka ay leeyihiin iyo ururka marka ay falsafada iyo philosophiga ay marka aaminsan waxaan ahayna ma maraan. dadkaas waa nagu jiraan dad macnaha waxaan nagu jira oo fara badan oo maaragtay aan gabigooda dawlad soo arag oo macnaha canshuuro la bixiyo iyo wax ay qayagu helaan maaha weligoodba wax bixin baa nagu jira oo waliba nagu badan. waxay doonaan soo dajiya waxaan macnaha la control soo dajiya wax aan maaragtay waxay qiimaha doonaan la gada oo aan qiimihii lagu xisaabtamin macnaha waxaasa nagu batay. taasi macnaha waxay keentay in lala fajaco canshuur bixiya fajac weyn dadka ku noqotay. marka dadka ay fajac ku noqoto waxna waxa way qof aqoon daro wixii u hayso oo u baahan in laga jaahil bixiyo. waxna waa in barbas qof kasoo og asagoo wixii inay jiraan og oo adduunka soo mara oo ummad la sheekaysta oo caalamka intiisa kala ka warqaba, laakiin kasiya maag u diidan sababta inay dawladaba jirto ama qarannimo soo kacdo ama qarannimo dhisanta aan diyaar ahayn. marka wixii sidee lagu kala ogaadaa? horta kow markaad aragto canshuur bixiya kow waxaa laga soo oboodayaa canshuurta Muqdisho waa Garowe laga biilaya. Garowe waa noolay Muqdisho baabaha ah oo burbursan baa Garowe noolay oo ifaysay oo kusuq qarafla shisharaf la waliba u noolaayeen ayaga iyo Soomaaliland waliba Hargeysa Soomaaliland dusha la iska saarine Hargeysa iyo Soomaaliland maamulka hadda Hargeysa burcaysta iyo macna nimankan la yiraahdo Puntland xidigahay mariyeen muddo badan runta markaad rabtaan waxa bahla galeenka ah waxa maartay soo qaadida iyo dhismaha iyo aan hawshoodu ay fara ka qodnayn. horta kow waa xamar waa sababta mar walba iyadoo macnaha loo in dhaqaale loo galiyo oo loo dhisaa ay u baahan tahay waa wajigii iyo facekii Soomaaliya. hadday Hargeysa si kasta u ifayso oo xamar dunsan tahay iftiinka Hargeysa ma muuqdo. hadday Boosaaso iyo Garowe ifayaan iftiinkooda ma muuqdo iyadoo Muqdisho ifaynin. maadaama ay tahay macaasimadii dalka Soomaaliya waxaa lagu khasban yahay kow iyadu inay ifto. dadkan waxyaabahan Soomaaliland iyo Puntland iyaga ifsaday iyo hadda wixii Jubaland iyo wixii ifay goboladan iyaga ifsaday wax laakiin Soomaali isugu tagto ifisa ma ah.
laakiin muqdisho waa meel la isugu tagayo oo la ifinayo si wada jiral waliba loo ifinayo dhaqaale hadday noqoto dowladeed oo macnaha ka soo gala tuugsiga meelaha laga tuugsanayo Soomaaliya la siiyo caawinaad hadday noqoto wixii la caawinaada koow horta muqdisho waa lagu dhisaa muqdisho ayaa lagu ifiyaa marka hore muqdisho ifin Soomaaliya inteeda kale ifkeedu macna badan ma leh waa meesha la rabo inay indhaha caalamka soo jiitaan waa meesha la rabo aasaas Soomaaliya in dib looga aasaaso looga yagleelo marka qofka qabyaaladeynayo marka leedahay bixiya canshuurta aranay maxamar kaliya laga qaadahaya maxaalaha la soo dhiso Soomaaliya dhan leedahay maxamar kaliya lagu dhisaayo maxamar kaliya maxaa loogu dhisayaa sabab ma isweydiisaan wixii dawladdan soo galo hor u horeysa meesha wax laga bilaabo wax laga dhisay laga aasaaso oo mashruuc kasta laga filnayo waa ayade ma isweydiisaan ma qabyaaladeysan markaas ma tiraadeen war maxaa waxaan oo dhan xamar loo gelinaya dadka ma qaybtooda la siiyo oo ceerinka lagu qaybsado maxaad u oran weydeen marka canshuur hal aruuray waa idinka garoowe iyo ka tusaale ku soo qanaya gobollo kale ayadaaba dunsan xamar ayadaa weli mugdiya ayadaa wada lahayn ayadaa baaba'san sideebaad qolo kaleba horta ay wax u bixisaa xamar marka iyadu isku filaato ma maqlaysaa markaa bal hata naagood dadka xamar degan ama dadka qabyaaladeynaya waa inay ka fiirsadaan hadalladaas marka ay xamar leeyihiin dad baa si gaar u leh hore dhoqol jeer looga hadlay cid gaar u leh xamar ma jirto hadday cid walba gaar u leedahay dee ciddii lahayd baa ku hari lahayd laysuguma soo noqdeen laysugumana imaadeen qolo walbana meel waa degan tahay cid hawada ku maqani ma jirto Soomaaliya cid walba meel bay degan tahay gobol walba dad baa ku nool gobol walba dad baa degan marka maadaama ay casuumadii dalka tahay in ayada khasaarihi iyo dhibaatadii iyo burburka loo geystay laga soo kabo oo marka la soo nuuriyo oo xoolihii Soomaaliya dhan ay sadaqada u heshay iyo wixii maaragtay ay qayb u hesho dhan la wada galiyo waa laga maarmaan Soomaali annaga iskala naqaan adduunka nima kala yaqaan Soomaali un baan u nahay qaar baa waxay leeyahay Erdogan xamar buu tagay maxaa nooga jira ma anagu noo yimid ma adiga Erdogan xamar hadduu tagay adiga kan kale idima kala yaqaano adiga kan xamar joogay adigu idinka iskala yaqaanay Erdogan iyo mad kale midna idima kala taqaan Soomaaliyeed u tihiin Erdogan wuxuu yimid casuumadii Soomaaliya xadunta laga bilaabaa wax walba madax bay leedahay marka kuwa qabyaaladeyna waxaan uga digayaa hadallada inay ka fiirsadaan kulay ma ahan Soomaali dhaba ma ahan waa dad u shaqeeya dadkaasi oo macnaha waligood fooda iyo xasarad bay ka shaqeeyaan dadkaas runtii waa dadka samaha iyo deganaanshaha Soomaaliya ay dhibto weeye oo ay xumaanta iyo burburka iyo mugdiga iyo masiibada ugu badisa weeye dad bay nooca ugu badisaa oo runtii nooca ku hawlan miidiyaha dad badan bay u soo dirsadaan lacag badan bay ku bixiyaan kooxahaasi marka ama canshuur hadiidayaan ama maaragtay maxay to nidaam kale si kale ha u magashadaan isku soo dad kale u shaqeeyaan kama daacad aha qofka Soomaaliga oo dafta oo bini'aadan damiirka Soomaalinimada maanta ku jiro canshuurta 5% iska daayo 3% baan yiri 20% ayagu voluntary inay la yimaadaan bay ahayd voluntary ayagu xataa la qasbin inay yiraahdaan inta shiraan ayagu war wadankeena dhulku yaala war wadankeena waa baabaasan yahay war 30 sano dib u baabaayay war soo ku soo noqdaa ma sahlana war baan ruqo waxa ninkeedii dadkeeda kiciye telefoon raal iga ahada telefoon ma iga deyso telefoon baa isaa naftiga keenay marka macnaha waa in dadkii isweydiiyaan marka ganacsatada Soomaali waxa looga baahnaa qof kasta oo Soomaaliya oo irbad soo degsada waxa looga baahnaa markuu u liito 20% inuu 10 sano u horeeyo xataa bixiyo waxa lagu ilaalinayo waa hantidiisii warshadihii baa lagu dhisi lahaa waa ciidankaaga hadda horta sideedaba Soomaali habarato aqliga saliimkaana ma galo nin adiga cadawgaaga inuu adiga ciidan ku dhiso horta hadaad sugto waa ku doqonnimo ama dal ku xoreeya ha sugin horta marka haday Soomaaliya daacad ay ka tahay umada Soomaaliyeed inay dib u xarowdo waliba dhalinyaro wadanka idinka iska leh idinka ay mustaqbalkiini ay tahay dadkan 70 jirada inuu hor taagan oo dhulkan horena u soo baabaashay maantana islaama walaashay yaa iga celiya gabar baa nafti ii keentay marka dadka macnaha maxay ahayto mustaqbalka Soomaaliya hananay oo munaafacaadsanaya waa dhalinyaro
dadkan 70 jirada 60 jirada iyo wixii ka sii weyn oo horjoogayaasha meeshan orjoogan oo ayaga ay xumaanta ugu badiso oo ayaga macna caloosh u shaqaystayaasha oo ayaga ajaaniibta inay kursi ku fadhiyaan ajaanibno u shaqayso ajaanib maarta madaxood iyo qorigood iyo xoogood iyo cududood ayaguna dalka ay u saxiixaan waxay doonaan ay dalka ka sameystaan dadka ajaanibta ayaguna halka lagu ilaaliyo dadka u taagan idinma danaynayaan ilaahayna kama baqayaan adduunyadana idinka xataa ilmihooday uma baqayaan oo ilmihiin maxay bari calfanayaan malaha waxa ku jirta ilmihii xoolo u boob wadan kale wax uga dhis wadankiisa u qabo oo u hagaaji kuma soo dhacayso wadankiisu dad ku yahay oo macna ku leeyahay oo quality ku leeyahay oo wuxuu barta iyo wixii soo dhan macnaha iyo qofnimadiisu ay jiritaankiisu uu macnaha wadankiisu macna ku leeyahay wadankiisa u dhis oo meel fiican uga tago ka dhaxlo kuma jirta ragaan runta hadda idin sheego kuma jirto ka qaado ka buuxso dibad kale wadamo kale oo ajaanibo inuu wax gashto raba xooluhu boobo dalka ma keenayo wadan kale u geynaya carab buu geynaya turki buu geynaya afrikaanka kale u geynaya yurub buu geynaya muxuu wada xoolahaas waa meeshii macnaha cunugiisa mar walba halka waa ku bahdelan yahay macna badan ka bala 10 jaamacadood hadduu ka baxo wallahi inuu soo shaqo macna la xataa ka helin meeshu ka shaqeeyo mar walba waa lagu abiyuusaya immigrant xuna madowbu ka yahay marka qofku meeshu macnaha ku lahaa oo quality ku lahaa oo wuxuu u qabsadaa ay macnaha lagu maamuusayay waa dalkiisa nin walba dalkiisa weeye yu macna ku leeyahay marka meesha ilmahooda nimankan wuxuu reebaya ma aha warloorada oo maaragtay horjoogayaasha ah niman wuxuu reebaya ma ahan waa ka qabso sheekadoodu maadaama saata dhalinyaradu waxa loo baahay inay fahmaan sheekadan inay fahmaan ciyaartan nin dhalinyarado dhintay mid cuuriyaamay iyo mid tahriibay Soomaalidu intood badnayd noqdeen marka hadduu ninkan wax taraya waa hor wax ku tari lahaay waa hor tahriibka ka cilna waa wax ku qaban lahaa waa wax barasho ka bixin lahaay nin walba hooya dhuxul gadaysa iyo mid maaragtay basbaas gadaysa iyo mid jeel la taagan baa ku hoogto ku baaday markay soo barbaarisana markuu hadlayso xagga fiirsho waxba waayay dhaqaajiye badu ama ku dhinta ama magafa qaatay ama xabsi buu galay inta bayrood noqday oo badaha maaragtay mucaarad noqday kuwa macnaha kalluumaysiga iyo badaha maraakiibta afduuba haye si buu ku baxayna walibana adduunkiina uusan wax macnaafanaad uga tagin aakhirada wax uga horeeyo ilaahay uu garanayo marka dhalinyaro nimankan aad horta idin dabata aad maxay idin hor kacayo daba taagantiin oo qabyaaladaysan iska daaya hadda waxaan u jeedaa inay aad wax u siiraanayaan qaasatan macnaha dhalinyarada Muqdisho iyo way fahmeen xaaladda laakiin waxa jira in yar oo in waxay u shaqeeyaan inta yar mucaaradka ah ama diin ahaan mucaarad ha u hadeen al-shabaab ha u shaqeeyeen oo ha ka tirsanaadeen ama xisbiga macnaha dadkan ajaanibta ama imaaraad iyo qox lamida iyo ajaan u shaqeeya ha noqdeen kooxahaas gaagaaban dad baa u shaqeeya miidiyahay aad u soo galaan lacag badan bay ku bixiyeen marka waxa weeye ujeedkaas waa in la wada fahmaa dadkaana waa in dhan la iska saaraa canshuurta marka aan ka hadalno canshuurta aan ku soo noqdo beeshkayga canshuurtu qof walba dhulkiisa asagaa dhisa bayla waxa laga saaray madaxa wajiga x inta laga saaray baa la soo ayaan ku arkay meesha x kala saaray maxay tahay waa dawlad ma rabno macnaheedu wax kale ma aha canshuur nidiida dawlad ma rabo way macnaheedu marka inta dawladda rabtaa badan aan istirino bal hala istiro koobo horta hala istiro koobo dadka tirada canshuurta diidan haday yar yihiinna ma maqlaysaa aan iska qabano haday naga bataanna hadda waxay rabaan hasabayaan isaga tagno ilaa wax kale sabayna ma naqo naga xoog badan yihiin marka waxa la is ogaado waa in la is ogaadaa dadka marka canshuurta bixiya macnaha ganacsatada waxaan u soo jeedinaynaa oo aan rabnaa in isha waliba si gaar ah loogu qabto ganacsatadu waa dad ilaahay farabadiyay waa dad Soomaaliyeed waa dad nooc walba leh dad badan oo Soomaali inay dhisanto diyaar u ah ka buuxa laakiin waa inaan fahamnaa oo aan jamac isaga dhigino isku dulqaadin ganacsato shaqo iskuma laha ganacsatada dadka koorka u ah oo horgorwadeenka u ah diidan xagga canshuurta kuwa diidan kuwa garwadeenka u ah waa inaan ogaanaa tirakoobkooda cid meesha u badan yihiin iyo meesha ku wajahan waa la fahmi karaa waana in la iska qabtaa doy oran ganacsado waxay xaq u leedahay inay la xisaabtanto wasaaradda maaliyadda cidda ka qaada canshuurta inay la xisaabtanto dawladda oo yiraahdaan waxaanad naga qaadaan tirakoob isku dhuftaan intaasoo qof baa ganacsatada Soomaaliya marta ama Muqdisho ganacsato waa inta tirakoobkoodu qofkaad irbada gada intaasoo bixiya kii macnaha qaaliga gada intaasoo bixiya kan raqiiska war annaga canshuurta intaas naga soo xaroota haye xageegaysan canshuurtaas xisaab baa u eg waa sax inay xisaabtamaan
واجب إن الحسابته لكن وحى خلط عنشور بحين مهايو ولقى عنشور ما بحين ولقى من دولة بعضها صدنا صلاة دولة الله أنا هيدي حاجات تشوكتي ما الحين مقدي يا شد قرقرة يا واحد شوكتي يا بالك قرح بدح فردي هي يا فالحمية يا قشن ما لقوا تومي قشن بدح في المقدي بدح فردي وإن لقوا افتيميو ومعناها دولة مع دولة نملا سعلي ولا قبل مارمان قفك قشن كقاضي يا كان عسكري يا كان حفيز كفري يا كيما كل البو مشارب وربا حقوق إيمان مشاركات وأنا عشورتك كتمادا معلوم والبا مقفى كم بلقوه هورسن how long انتي قاضنيسا إنكم بالله هورسدو كم بقف له هورسدي ميقم حي كفينيسا حي دبوليسا marka dadka aadka u qaldan oo runtii qabyaaladeeya waxa wanaagsan markii la soo wax wanaagsan la sheegay qabyaaladeeya horta ha joojiyaan hana isku xishoodaan shame on you isku xishooda wax laga gudbay ha ku laalaabanine wax laga gudbay ha ku laalaaban wiilkii hawiye oo xamar lahaa wuu tashtay wuu ogaaday qabyaalada inay waxba u keenayn marka midka maxay to qabiilka la sheeganayo oo maartay mijaxaabinayo oo ninkan wax fahmay raba inuu maartay ka dulba oo yiraahdo qabiil wax ugu jeediyo kuma jeedin kartid wuu ku fahmay wuu ka tashtay marka ma qaldi kartid please marka dadka sida xun wax u adeegsada oo iska dhiga muqdishaawiga dad ayagu xamar leh oo macnahay dadkaasi aqligooda oo waliba kooxda ah waa inay aqligooda dib isugu tashtaan kooxda aqliga badan oo tashatay oo dalkooda dhismahooda u soo jeensatay ama ciidan ha noqdeen ama xafiis ka shaqeeyeen ama macallin ha noqdo qayb kasta oo bulshada macnaha qaybaheeda kala duwan baahiyaheeda fulinaya waa inay iska qabtaan dhalinyarada muqdisho dadka noocan u hadla miidiyaha kulli dadka miidiyaha ku jira dad baa soo dirsada dad baa dabada ka riixayo dee fangaraynayo iyagu kaligood bilaa macno uma soo galaan mushaar bay ku shaqeeyaan marka dadkaas waa in macnaha la iska jiraa dadka waa in shaqo laga qabtaa dadka waa in reality marka loo hoos dhaadhac waa la is ogyahay waa la isbaaraa sababta waxaan noo sheegayaba ganacsatada diidan canshuurta ayagaa furaba u ah waa fure waa in la tiro kooba waana iska qabanaa waa in baraha bulshada noola soo dhigaa waana la xisaabtanaa sababta u diidan yahaan rabnaa waa u diidan yahay dal walba nin walba qofka ugu dambeeyo Soomaaliya aan walgis meel tagin wuxuu yaqaanaa dadka dibadda jooga dadka qaraabadiisa dibadda joogta wariyo adduunyada kale ma canshuura intaas la iska qaada canshuuraha laga qaada bal noo soo tiro kooba Kenya darisna laha war ma canshuura inta laga qaada Ethiopia darisna laha war maxaa laga qaada marka dadku وحبي حنشورته حبيين حنشورته هذا ماشي يكون بحيينا هلا حسابتين من دولته وحلا تابن كروي وواحد ما له راح عليه لكن مركز عنشور بحيه لينا عنشورتين قرا ولا قدسة قرا وهرتابة شرتي أو كذا شابة شريسة أو ولا هذا كاشرت وكاهر مرسنته متى كلنا قرا وعند حوله هذه ولا مقدسة ولا قدسة هي مركز حوله قرا ومقدسة ولا قدسة هي ما بعد كهل لنا مركز العنشور بحلا محد وصار لنا قرا ولا سينية قرأوا معنا ماشي قلت بيسال سنة عشورة الدلك إسكله سومالي بقى إسكله مقدشة الصومالي بقى إسكله حولي الصومالي لما كتير مركي حتى نقطه لكن otherwise حل كان ما بالله هم بحل كحل كران ولا دي كرا تاس معها سبته حمر أيضا لولك كتيرته أيضا اسكون في اللين مركز اسكون في اللات حمر مقدشة مركز اسكون في اللاتو مركز اللي أورنكر ضد بيجعان ساين كرته لكن تيس دريالة تكل كدرة تهدي بيس ولد دريالين تهدي بيس إسبيحنين ayadaa u baahan in la soo kabo ayadaa maarata dhaqaalihii iyo wixii macna hay'adaha iyo wixii dhaqaalay meelaha laga soo bariyo ayadaa lagu kabayaa wali canshuurteeda marka ha bixiso dadku canshuurta ha bixiyaan waan ogahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo macnaha maxay tahay ganacsata oo khayr badan ay jiraan oo canshuurta bixiya oo volunteer la ah oo dhibaatada dhacdaba u taagan ilaahay khayr badan ha siiyo laakiin kuwa tuugta oo mujaxaabada ama qabyaalad ku dabarqaya ama urur iyo mabda ay aaminsan yihiin maxay to ayagoo wata ku dabaqaya dad canshuurdiidan iska dhigaya no kamaana yeel waa inaan fahamnaa meesha ka imanayaan sourcigoodu meesha ka imanay waa inaan fahmo meesha salka ku hayaan diidmadooda waa inaan fahamnaa si aan isaga qabarno oo aan maartay umada calaamad yellow loo saaro red loo saaro anigu ogaan umada waa in laga calaameeyaa taas waa marka canshuurtii taasaan ka leeyahay waxyaabaha marka khayraadka dalka oo qoladan la leeyahay carabtan oo la sheegayo imaaraadka oo DB Wall la leeyahay qoloyina iska soo ceyriseen Djibouti iska soo ceyrisay oo maxay tahay qoladan Somaliland ay maartay nacayb ay koonfur u qabaan iyo go'id ay janteen waa janteen jamasha la yiraahdaa taas go'idii macnaha reasonable ma aha laakiin waxa uu janteen weeyo qofkaas islaamka uur loo waxbay jamataan maqal jiri waa
jamasho way janteen ma jamashadii waxay kaliftay marka inay cadowgii u jabaan oo aysan xisaabtamin oo laga faa'iideysto khayraadkoodii oo maaragtay inta indhahooda koonfur kale ku arkay hoostooda la xaalifiyey oo maaragtay qof aan toob waxba ku darsan ay 19% ku leedahay oo maxay qolada imaaraadka ahayd ay 50 iyo something leeyihiin oo dadkii jiilkan iska lahaa dhulkan kuwa soo aan waxba loo reebin qofkii maanta unbaa wax qaatay kii maanta wax qaatay marka Jabuuti waxay u soo ceyrisay dhulkoodii bay diideen in lagu maamulo annaga maamuleen maxaad maamulaysaa meesha anaa iskale maxaad igu maamuli sheer baad ka tahay sheerkaaga qaado waa lagu heshiin waaye waa waxba waa wadi waayeen waa la iska soo ceershay Somaliland marka waxa way indhaheeda waxay u furan yihiin Soomaali koonfur seed uga go'da seexda waan isaga celisaan ma arkaan waxay ugu dhawaanayaan ama ida aqoonsadaan ima idin yeelaan 7 sano ku aqoonsan lahaayeen aqliga ha iska qaadin walaalka cadawgaad u arkaysa cadow kuma cadawgaaga ha u cararin hana u durkin kaama fow kana ku dhow kanaad ka cararaysaa ku dhow kanaad ka cararaysaa wax wada leedin kanaad ka cararaysaa af wadaagtaan kanaad ka cararaysaa diin wadaagtaan kanaad ka cararaysaa dhalmo wadaagtaan marka dhalasho wadaagtaan marka iska daaya fikirkan adag oo madhalayska ah oo macnaha koolada ku dhacdo maskaxda bini'aadanka subhanallah ilaahay ha idin ka daweeyo taas marka taasna waxaan macnaha ilaahay horta waxaan alxamad ilaahay ballaaran baan u soo jeedinayaa Soomaaliya maanta daba qabtay oo caymiyay oo ku caymiyay rag hufan oo daacadiin ah oo wadaniyiin ah oo ay ka go'an tahay inay dalkooda iyo dadkooda dib u soo celiyaan mar kale adduunyada dib ugu soo celiyaan yaa ilaahay ma hadda iskale waa mideeye iyo madaale waa madaxweynaheena ilaahay ha karaameeyo iyo ra'iisul wasaaraheena khayr qabe ilaahay ha karaameeyo iyo xukuumaddiisa oo ah rag aan kala dhicin oo waliba baylo u horeeyo la iskuma jira juun baynu nahay biir oo wasiir baylo u horeeyo meel sana Allah mariye iyo xukuumad aan kala dhicin oo xisaabtamaysa oo mintid ah oo shaqaynaysa oo kii maarta wax yar dabacsanaan laga arko oo hore loo dhaqaaji farta maxay dhabarka laga taabanayo oo aan la isaga naxayno madaala u jooga ilaahay madaala u keeno mideeye iyo madaala ilaahay u keenay dad ba xanuun qaba qabiil ama oo arka oo khayraadka iyo wanaaga ay wadaan aysan u muuqan because of qabiil because ama mabda ay aaminsan yihiin because of fikri iyo diin iyo mabda iyo group kale ay aaminsan yihiin because of fikir kale iyo shisheeye u shaqaynayaan khayraadkan iyo Soomaalinimadan iyo wanaaga ay wadaan uma muuqato dad baysa u muuqan ilaahay ha tuso wanaaga kuwa aysan u muuqanay ka daboolan tahay oo qulubooda maskaxdooda wanaagu ka daboolan yahay iyo meesha wanaaga ay ku wadaan raggan Soomaaliya maantay ilaahay ha tuso asaga qulubaha dadka badbadala ilaahay dhalinyarada reer Somaliland oo maskaxda laga wasaqeeyay ilaahay caafimaad sariixa ha siiyo ilaahay xaq ha fahamsiyo dadku way dagaalan wayna heshiyaan Soomaaliya ama hadda gaasha ama heshiin meel kuma kala tagayso ilaahay qulubtooda wanaagooda ha isu soo dumo ilaahay shartooda ha kala xijaabo muddo badan ayay macnaha ku soo jireen isku hayeen wax shar ah oo fara badan ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu shartooda kala xijaabo inuu khayrkooda isu soo dumo inuu maaragtay wanaaga iyo wada jirkana fahamsiiyo Soomaaliya meel ay joogaanba kuwa qabyaaladu madaxa kaga dhigtana qabyaaladu waa masiibo adduun aakhirana waa cadaab adduun iyo cadaab aakhiro ilaahay waxaan ka baryo inuu ummadda maskaxdeeda ka buskooysiyo iyo qalbahooda ilaahay inuu Soomaalinimada waxba isuma jiro Soomaali wax isuma jirto Soomaali waa isku mid meel ay joogaan waa isku mid meel ay taga ilaahay amarkiisa telefoonada nafti ii keenay inaan isaga baxay noqonaysaa marka telefoon baa nafti ii keenay marka waxaan leeyahay kuwa macnaha baylata isku talaabta ku dhigayo ilaahay ha idin soo hanuuniyo rabbiga isaga awoodda iska lahayd soo hanuuniyo wanaaga iyo shaqada iyo howlkarnimada iyo meeshu idin wadana tashiilo weeye Allah idin tuso iimaanka Allah idin ku soo celiyo cadow iyo shisheeye hadaad u shaqeynaysan wajigiina isku talaab madow Allah ku dhigo rabbiga isaga awoodda leh haddiin faham la'aan ay idinka tahana Allah idin fahamsiyo wanaaga hadday cadow kuwa u shaqeynaya aad tihiin ilaahay wajigiina isku talaab madow akhriya adduun baa ku dhigo ilaahay meel saxna ha idin dhigo gadaal hadaad Soomaaliya u celinsa gadaal idinka Allah idin cisho kaligin Allah idin koobo hadaad wanaag iyo macnaha ama aqoon darro wixii idin haysana wanaaga Allah idin fahamsiyo Soomaaliya waa mid
meel kasta oo tagtaan Soomaali in baa ka tihiin wax idin kala sheegayo ma leh wax idin kala soo ka marinaya ma leh waxa idin kala soo ka marin kara waxa qabiil idin ku sheegi kara ninka idin kala gadaya just inuu baawarkiina dhiman raba sida awal bal idin kaga faa'iideystay sida ilaa hadda bal idin ku wado waxa idin kala yeeranaya waa nin raba inuu cududiina dhimo inuu idin kala wiiqo inuu midba meel ku horo wax calaamada badan oo lagu sameeyana ciyaar ma aha sabab la'aan ma aha waa sabab anaga waxaan u qabnaa inay dan ku jirto waan dagaalay waa sax dad baa maxay to libaatay waa sax dad baa ma hantidooda maqantahay waa sax dad baa dadkooda leeyahay waa sax laakiin Soomaali way isdil jirtay wax naga khaldayna wax shaydaan naga adeegtay buu ahaa wixii shaydaanku naga adeegtayna inaan sii wadno oo aan forever ku sii jidno ma aha inay macnaha aan ku sii jirno waa inaan fahamnaa ninna waayo qofkan waa na kala jecel waayo wadanka aan joogno nala kala shaqeyno naloo kala yaqaan hawiye daarood iyo isaaq naloo kala sheego waa xagee waa meelma waa maya nin kaliya oo rabo inuu kala dilaayo reebel iska celi bas oo ubka noo dhiibi yaqaana inta ay fahmeen 9 bilood baa ku dhalanay 9 bilood bay ku dhasheen islaam baa waliba ilaahay naga dhigay ilaahay diin buu nasiiyay ilaahay aqli buu nasiiyay inta garan weyno waa nasiib darro waa masiibo iska rabaani oo nagu habsatay ilaahayna ha naga dulqaado ilaahayna wuu naga dulqaaday ilaahay ha noogu wada nimcadan Soomaalitii isfahamta oo midowda oo meel ka soo wada jeensata Allah ka dhigo xaqana Allah wada ku kulansiyo ilaahay xaqa ha waafajiyo xaqa Allah ku mideeyo xaqa Allah ku mideeyo Soomaali ilaahay asagoo awood leh xaqa ku mideeyo ilaahay mideeye iyo madaale iyo tashiile iyo xukuumadoo dhan iyo baarlamaanka iyo inta wanaaga ka shaqeynaysa iyo kuwa media wanaaga ka fidiya kullina ilaahay ha noo xifdiyo wanaageena Allah badiyo sharteena Allah kala xijaabo inta xunta wadana ilaahay wuxuu hanuun ugu talagalanahay soo hanuuniyo intaan hanuun illa ugu talagalin ilaahay shartoodii shar kale hana dhaafiyo hadda intaasan caaw in kaga tagahaya waa walaashin Hinda Cabdi oo maxay tusiyaal waashta in kala soo hadlaysa waan idin salaamay khayr baan isaga tagaynaa canshuurta hala bixiyo iimaanka hala isku sugo khayraadkeenana Soomaaliya ha ilaalso shacabku khayraadkooda ha ilaalsano dawladdeena xab badan ha ka dhowran dawladdu wali ma xoog badna shacabka laga rabaa inay dawladooda garab istaagaan canshuurta hala bixiyo maxay ciidamadu ha sabreen war dadka ciidamada aan wax u hurno war ciidamada waxa loo huro war $10 bisha hadaad dhito maxay ka dhibi war waayo qofkii $10 wax ka dhibayso oo maanta qurba jooga war ilaahay ka baqa war waxaan u baranay wax walba in iyaga bisna loo keeno war suurtagal ma aha war waa waxaan dhacaynin war ma dhacayso reecadi reesmud baa waxa looga intay sacaasiin cuntada iyadoo bisil cirka looga soo dajin jiray enough ciidan baa looga soo dajinaya ma jirto wax walba inaan shaqaysana ilaahay noo diray ilaahay markaan wax wanaag ka shaqeyno ilaahay waa noo fududeynaya marka $10 qof wax kugu dhibi mayso war dawladdu intay cagaha isku taagayso qurba joogteena $10 xataa xoolo badan yaanaan dhiibin $10 bishaan iska dhiibin qof walba una isxilqaan oo cagahaaga ku geey meesha kuugu dhow ama xawaalada kuugu dhow akoon buu sheegay wasiirku maaliyadda Bayle akoonkaas hala soo wada xawaaladaha kale laga helayaa qof walba isxilqaan qofkii timekiisa galin karo oo dariskaaga iyo saaxiibkaaga iyo qofka isleeda waa leysi xataa uu bixin lahaa laakiin ma keenayo ka soo qaad 10kaaga iyo 10 aad 4 saaxiibada ka soo qaad $100 adoo wada gee 10 qof xataa ka soo qaadin wiilkeena askariga oo furunta ku dhaawacma waxay u tahay hidadiilo kan ku jira hidadiilo u tahay waa inaan garab istaagnaa ciidamadeena kuwa canshuurta diidayo canshuurta bixiya kuwa dibadda joogowna lacagta $10 iska bixiya ilaahay ka cabso dalkeena aan soo celino dalkeena meel hoos uu joogaa wali balaaya ku hirgisaysa cadow fara badan buu leeyahay horjoogayaashii cadawga u shaqayn jireen wali waana hor taagan yihiin baarlamaanka inoogu jiraan goboladii bay haystaan qabyaalad bay hidow ka yiraahdo qabyaalad baa lagu daba taagan yahay wax la xisaabtamaya male war inta aan fahamno dhalinyarada iyo dadka shacabka fiyow inta hala fahmo dawladda hala shaqeeyo canshuurta hala bixiyo Soomaaliyana Allah mideeyo Somaliland xaq Allah fahamsiyo intaan xaq fahamsanin in badan xaq fahamta ku jirta Allah u saacidiyo ummadda Soomaaliyana wanaaga Allah ku kulmiyo meel ay joogaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh saasan caawin kaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh